shan iyo labaatan sano ee jirsatay Puntland waxa way farxad aan la soo koobi karin habeenada ka duwan dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin sidaa noogala soo qayb gasheen waxaan idin leeyahay horta soo dhawaada salaanka bacdi waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Puntland meel kasta ee adduunka ka joogaan waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dawladda Puntland iyo dhalinyarada iyo isimada iyagoo isku dhan ummadda Puntland oo dhan meel kasta ee adduunka ka joogaan waxaan leeyahay hambalyo 25 sano ka hor waxaan halkaan uga duceynayaa oo aan maaragtay uga mahadnaqayaa qof kasta oo ka soo shaqeeyay maantay nimcada iyo nabadda iyo farxadda lagu haysto Puntland oo anigu aan dhihi karo waa mid aan indhahayga ku soo arkay wax badan oo indhahayga ay ku farxaana aan soo arkay waxaan u rajeynayaa dhammaantiina in aad nagula hambalyeysaan 25 sano oo caawa aan u dabaaldegayno waxyaalaha Puntland maanta ay ka dhacay 25 sano kadib waa wax maalinba isku qoridhiib ah dawladnimada waxa hadda maanta noo hirgalay oo farxad noo ah inay caawayto aan meeshaan aan ka sheegno oo aan kulligeen aan meesha isugu nimaanay waxa waaye in ay Puntland ay gaartay cod iyo qof heer qurba joog xataa waxa idinku bishaareynaya inaan noqon kartiin dad intee dalkooda tagaan deegaankooda tagaan iska diwaan galiyaan in aad idinku laftigiina aad noqon doontiin kuwa u tartami kara xilalka kala duwan oo dadku ay soo dooran karaan iyagu dadka ku matalaya siyaasadda dalka waxaan uga mahadnaqaynaa guusha maanta noo soo hoyatay dhammaan madaxweyne kasta oo ka soo shaqeeya Puntland waxay u suurto gashay Saciid Cabdullaahi Deni in uu ku guuleysto in ay hana qaado dimuqraadiyadda Puntland maantana aan oran karno waxay joogtaa meel maanta ay aan dhihi karno ma sha Allah alxamdulillah waxaan inta idin raacsiinayaa shakhsiyan caaway habeenada way iga duwan tahay 5 sano si dhamaanayso Saciid Cabdullaahi Deni waxaan kaloo idin sheegayaa halkaan maalintii la igu horeysay oo madaxweynaha Cabdiwali Cali Gaas uu igu soo magacaabay in aan noqdo wakiilka dawladda Puntland haddana uu Saciid Cabdullaahi Deni dib igu soo magacaabay waxa idinku bishaareynaya in qof kasto idin kamida uu soo istaagi karo xilkan 5 sano markay dhamaato inaan noqon doono qof ku wareejisa qof kale oo noqda qofkii bedeli lahaa isku wareejiga dawladnimada waa dimuqraadiyada ka mid tahay in aan soo shaqeeyay waa ku faraxsanahay in aan dalkayga iyo dadkayga aan u soo shaqeeyay aniga oo aan midna marnaba aan ka xagranaynin waqtigayga maalkayga iyo maskaxdayda intaba aan ku huray waxaan rajeynayaa qof kasta oo hamigiisa iyo himiladiisu ay tahay inuu u adeego dawladda Puntland asagoo halkaan jooga waxaan leeyahay isdiyaari 5 bilood ka bacdi haddii uu nasiibka siiyo Saciid Cabdullaahi Deni inuu dib u soo laabtana kadalika diyaar waxaan ahay inaan wareejiyo waxaan idin leeyahay soo dhawaada haddii uu soo laabto iyo hadduu soo laababa markastaba isbedel cusub baan doonaynaa reer Puntland waxa idin rajeynayaa guul waan soo shaqeeyay waan idin jeclahay insha Allah waxaan rajeynayaa mid kale oo fiican inuu idin imaan doono sanooyinka soo socda sanadkan waxay noqon doontaa sanadka ugu dambaysa oo anigu aan ku hadlo jaaliyadda magaceeda waxaan noqon doonaa wakiilkii hore ee dawladda Puntland laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa inaan shakhsiga iga dambeeyo aan mikrofoonka ku soo dhaweeyo si gacmo furan leh aan la shaqeyn doono aad idin salaamaya waa ku mahadsantihiin isku imaashihiina waa ku mahadsantihiin sida farxadda leh oo nagala soo qayb gasheen arinta sool iyo sanaag waxaan leeyahay guul ba idin rajeynayaa adduunka waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad waxaan u maleynayaa qofna
inuu qofna uusan u talin karin wada noolaanshaha iyo wada joogista qofka asaga ka go'daa hadduu asaga u gartana inuu kaligiis istaagana waxaan idin leenahay heer qaatumo iyo sool iyo sanaag iyo cayn oo dhanba hambalyo ku socda garabkiina. Assalaamu calaykum.